bani aadamku had iyo jeer waxa uu jecel yahay inuu calaaqo ama xiriir yeesho haddii ay ahaan lahayd mid guud ama mid gaar ahaaneedba, balse marka la eego nolosha dadka waa ay kala duwan tahay. waxaad arkaysaa dad ku leh bulshada dhexdeeda sumcad iyo jacayl zaa'id ah, dadkuna ay soo dhoweynayaan, waxa ay wadaanna qaabilayaan, halka dad kale markii aad fiiriso ay yihiin kuwo aan la jecleen, naftuna ay ka cararayso. inta badan dadka quluubtooda waxaa lagu dabeeceeyey in ay u cararto ama jeclaato ruuxa mar weliba u jilcan amba u dhimrinaya, kana shaqaynaya dantooda iyo waxa ay raadinayaan. marka aynu dib u eegno dhaqankii rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sidii uu ku ahaa ama uu ula dhaqmi jiray dadkii uu la noolaa, waxa aynu dareemaynaa in ay ka muuqatay ruuxdii insaaniyadda iyo dhaqankii islaamka. sidaa darteed waxa uu ku lahaa bulshadii uu ku dhex noolaa laga soo bilaabo bilowgii noloshiisa ilaa uu ka dhimanayay saamayn weyn, taasoo xitaa ay u qireen dadkii ka soo horjeeday xilligaas. haddaba waxaa isweydiin mudan, maxaa qofna loo jeclaadaa oo dhankiisa loogu cararaa, qofna loo dhibsadaa ama aan xaggiisa cidna u eegin? maxayse tahay waddada ugu wanaagsan aad ku noqon karto ruux dadku jecel yihiin, mar welibana xiisaynayaan? qofka isku daya inuu fahmo qof weliba waxa uu ka helo iyo waxa uu necab yahay, waxa uu inta badan ku guulaystaa inuu hanto quluubtooda. waxyaabaha aad ku gaari karto kasbashada ama jaceylka dadka waxaa ka mid ah: noqo qof iimaan leh. dadku waxa ay jecel yihiin qofka marka uu iimaan buuxa leeyahay, allahna ku xiran yahay. noqo qof daacad ah. qofka aan khiyaanada aqoon, dadka qalbigooda waa uu ku weyn yahay. iska dhowr inaad qalad ama gaf ka gasho dadka. dadku ma jeclaadaan had iyo jeer qofka gafka ama dhacdhaca badan. allah dartii u jeclow dadka oo dhan, qofna adiga oo aan dan gaara ka lahayn. haddii aad alla dartii u jeclaato, waxa aad noqonaysaa qof dadka agtooda qiimo ku leh. qof kasta oo aad la kulanto ku qaabil weji farxad leh, kuna bilow salaan adiga oo dhoola caddaynaya, uguna yeeraya magaca uu ugu jecel yahay. had iyo jeer dhoola cadday oo wejigaaga ha ka dhigin mid laga naxo ama laga dido. dadku mar weliba qofka farxadda iyo dhoola caddaynta badan bay jecel yihiin oo xaggiisa u soo xiisaan. mar weliba dadka u gargaar. qofka gargaarka badan dadkana caawiya, had iyo jeer dadku waa ay jecel yihiin. noqo dhegaysta fiican. dadku inta badan waxa ay jecel yihiin qofka u dhega nugul ee dhegaysta warkooda. dadka u hadiyey oo isku day inaad ka farxiso. qof isaga oo aan war u hayn haddii aad ka farxiso oo aad u keento hadiyad, weligii lagama yaabo inuu qofkaasi ku iloobo. waxaa hubaal ah intaan haddii aad dhaqan geliso, waxaad arki doontaa dadka oo u soo hilooba xaggaaga. mar weliba waxa ay jeclaanayaan inay ku dadaalaan sidii ay kuu heli lahaayeen. samafalku waxa uu ka mid yahay sifaadka iyo qiyamta sarsare ee islaamku na amrayo, waana dhaqankii ambiyada allah lala soo diray, taasoo ay dadka kula dhaqmi jireen, ayna dadka ku boorin jireen in ay la yimaadaan dhaqan iyo caadana ka dhigtaan. samafalku waxa uu macnihiisu noqonayaa inaad dadka kula dhaqanto wanaag, mar welibana u samaysid musaacado, u kaalmeyn iyo garab qabasho intaba, adigoona ku sheeganaynin wax abaal ah. haddii ay doonaan ha kugu sameeyaan waxyaaba aan raalli ka ahayn, balse aad u fiiriso in waxani ay yihiin waxa aad ku doonayso inuu allah ajarkaa siiyo, khayr badana kugu abaalmariyo. diinta islaamku waa diin loo soo dejiyey makhluuqaadka oo dhan, dadkana u ah raxmad iyo khayr, markastana u hogaaminayso meesha khayrkooda iyo wanaagooda ku jiro. sidoo kale diintu waxa ay nagu boorinaysaa inaan ka tegin samafalka iyo ixsaanfalka makhluuqaadka allah, gaar ahaan insaanka, iyo in lagula dhaqmo wanaagga si ay noloshu u noqoto mid dadka dhan ay u wada siman yihiin. allah subxaanahu watacaala samafalka waxa uu ku tilmaamay inuu ka dhalanayo samafal kale. ruuxa dadka u samafalana uu ugu abaalmarin doono midka uu la yimid midka wanaagsan. sidoo kale rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay ixsaanka ama samafalka inuu ka mid yahay martabadda ama darajooyinka sarsare ee lagu gaaro u dhowaashada allah iyo naxariistiisa. haddaba sidee baad ku gaari kartaa inaad noqoto ruux sameeya samafalka? inaad noqoto ruux samafal badan waa martabad aad u saraysa, waxaana hela sifadaas ruux allah jeclaaday. maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, dadka kuwa allah agtii loogu jecel badan yahay waa kuwa anfaca addoommada allah. inta badan samafalka waxa uu ku horseedayaa inaad ku hesho naxariista allah iyo raalliyaashadiisa. sidoo kale waxa aad ku helaysaa darajayn wanaagsan, dadka agtoodana waxa aad ku yeelanaysaa sharaf iyo karaamo. allahna waxa uu kugu abaalmarinayaa jannadiisa inta aad ka shaqaynayso ama aad samaynayso samafal. ugu dambayntii, inaad ka dhigato dhaqan samafalka dadkan aad garab qabato waxa ay ku gaarsiinaysaa in uu allah kugu dhowro adduunyada. markii aad tagtana maalinta qiyaamo waxa uu ku siinayaa abaalmarin wanaagsan, ee waxa aad ku dadaashaa inaad dhaqan ka dhigato samafalka iyo u adeegista makhluuqaadka allah. dulqaadku waa sifo ka mid ah sifooyinka wanaagsan, taasoo lagu yaqaano dadka u saaxiibka ah caqliga iyo garaadka, waana sifo uu allah jecel yahay. sidoo kale waa dhaqankii iyo caadaadkii ay lahaayeen ambiyada allah.
inta badan ruuxa ku sifooba dulqaadka waxa uu noqdaa ruux dadka dhexdooda ku leh cizi iyo sharaf, waxa uuna ku mutaystaa in uu ku helo sifadan allah agtii darajo weyn. sidaa darteed rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo tilmaamayo saxaabiga lagu magacaabo Ashjac ibnu Qays dulqaadkiisa iyo deganaashadiisa waxa uu yidhi, waxa aad haysataa ama aad leedahay laba sifo uu allah iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin. waxa uuna ku sheegay labada sifo in ay yihiin dulqaad iyo deganaasho. dulqaadku macnihiisu ma ahan in aad dulli ku dhacayso markii aad la timaado, balse waxa uu kuu horseedayaa in aad hesho karaamo iyo cizi, dadka agtoodana aad ka gaarto martabad aad u sarrayso. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa mid dabeecaddiisu ay wanaagsan tahay, aad ayuuna u dulqaad badnaa. Anas binu Maalik allah ka raali noqdee waxa uu yidhi, waxa aan la socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxa uu rasuulka watay go' adag. annaga oo wada soconno ayaa waxaa naga daba yimid nin reer baadiye ah, markaasuu wuxuu qabtay go'ii uu rasuulka watay, kadibna waa uu ku jiiday go'ii ilaa uu ka saameeyo go'ii qoorta rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ninkii ku yidhi rasuulka, waxa aad ii amartaa xoolaha allah ee agtaada yaallo. markaasuu rasuulku fiiriyey ninkii reer baadiyaha ahaa, wuuna ku qoslay, kadibna wuxuu amray in xoolihii la siiyo. tani waxa ay tusinaysaa sida uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ahaa mid akhlaaqdiisu wanaagsan tahay. sidoo kale waxa ay muujinaysaa dulqaadkiisa iyo sida uu dadka ugu sabri jiray. haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo inaad noqoto ruux dulqaad badan? dulqaadku waa akhlaaqdii rasuulkeena Muxamed uu nooga tegay, taasoo laga doonaya ruux waliba inuu ku sifoobo. waxyaabaha kugu horseedi karo in aad la timaado dulqaad waxaa ka mid ah in aad noqoto ruux sabar badan, dadkana iska cafiya. in aad niyadda ku hayso ruuxa markii uu badiyo dulqaad uu ku heli doono allah agtii ajar fara badan, maalinta qiyaamahana uu siin doono abaalmarin wanaagsan. in aad badiso aamusnaanta, maxaa yeelay aamusnaantu waxa ay kugu saacidaysaa inaad ka guulaysato ruuxa doonaya xumaantaada. in aad ku fikirto ruuxa dulqaadka badan waxa uu heli doono oo thawaab ah maalinta qiyaamaha. in aad saaxiib ka dhigato dadka dhaqankoodu yahay sabar iyo dulqaad, taasina waxa ay kugu saacidaysaa inaad ka dabeecad yeelato dulqaadka. sidoo kale dulqaadka iyo deganaanshaha waa laba sifo uu allah jecel yahay. ruuxii laga helana waxa uu u ballanqaaday in uu maalinta qiyaamo siin doono abaalmarin wanaagsan. sidaa darteed waxaa habboon inaad ku dadaasho dulqaadka si aad u hesho jeceylka allah iyo abaalmarintiisa maalinta qiyaamaha. ixtiraamku waxa uu ka mid yahay qiyamta sarsare ee ruuxa gaarsiin karto in uu ku helo darajo fiican bulshada dhexdeeda. waa astaan ka mid ah dhaqanka wanaagsan taasoo ay la timid diinta islaamka. ixtiraamku waa dareen xambaarsan naxariis iyo weyneyn, taasoo oo ay ka dhalanayso farxad iyo reerreen aan la soo koobi karin. insaanka dabeecaddiisa waxaa ka mid ah in uu jecel yahay bulsho amba uu yahay bulshaawi, mana awoodo in uu noolaado bulsho la-aanteed. taasina waxa ay keenaysaa ama ay ku qasbaysaa in uu helo dad la wadaago ixtiraam iyo qalbi wanaagsan. ixtiraamku waa uu noocyo badan yahay, waxa uuna kala leeyahay darajooyin, balse bulsho kastoo waxa ay leedahay hab ama qaab ay ku muujiso. marka la fiiriyo qaabka ay diinteennu nafarayso ayaa ah mid ka duwan dhaqamada kale. allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna amrayaa in aynu dadka u nidhaahdo qol wanaagsan, wuxuuna ku leeyahay qur-aankiisa kariimka ah suuratu baqara aayadda 83. dadka waxa u tidhaahdaan qol wanaagsan. taasina waxa ay tusinaysaa in qolka wanaagsan uu ka mid yahay waxyaabaha ka qayb qaadan karo in ay wanaagsanaato noloshayna iyo tacaamulaadkeena oo dhan. allah waxa uuna amrayaa in aynu kula dhaqanno dadka akhlaaq wanaagsan iyo ixtiraam, waxaana hubaala intaasi ay ku jirto xalka dhabta ah, kaasoo aan ku gaari karno isbeddel sax ah, kuna guulaysan karno in aynu ka takhallusno dhibaatooyinka faraha badan oo la xiriira noloshayna. sidoo kale allah waxa uu nooga warramayaa qaabkii uu rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam kula dhaqmi jiray dadka, isagoona ay ka muuqatay ixtiraam iyo naxariis fara badan. wuxuuna allah suuratu aali cimraan aayadda 159 ku yidhi, raxmad iyo naxariis uu rabbi ku siiyey sababteeda ayaad ugu jilcanaatay mu'miniinta. haddii aad ahaan lahayd mid dabeecaddiisu adag tahay waa ay kaa kala carari lahaayeen. ruux weliba ee dunidan ku nool waxa uu jecel yahay in uu helo ixtiraam iyo qadarin wanaagsan. taasina waxa ay ku imaan kartaa in marka hore ruux weliba uu la yimaado ixtiraam si isagana uu u helo mid la mid ah. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku yidhi, ruuxii jecel in laga fogeeyo naarta jannadan la geliyo ha noqdo ruux allah iyo maalinta qiyaamaha rumaysan marka uu dhimanayo, dadkana ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay in lagula dhaqmo. taasi waxa ay macnaheedu tahay dadka kula dhaqan waxa aad jeceshahay in ay kugula dhaqmaan. qolka wanaagsan waxa uu keenayaa in aynu gaarno xal wanaagsan. haddii la waayo ixtiraam wax weliba waa ay lumayaan. ixtiraamkuna waxa uu keenayaa in la helo horumar iyo xal waaro. haddaba maxay tahay waxyaabaha aad ku kasban karto in aad noqoto ruux uu ka muuqdo ixtiraam?
marka hore in aad ku sifowdo ixtiraam waxa ay ku gaarsiinaysaa in aad noqoto ruux ku leh bulshada dhexdeeda sharaf iyo qiimo. sidoo kale Allah waxa uu ku siinayaa ajar fara badan maadaama aad noqotay ruux akhlaaqdiisu wanaagsan tahay inaad ku kasbato soo dhoweyn xagga bulshada ah. gabagabadii, ixtiraamku waa dhaqanka diinteena islaamka. inaad ku sifowdana waxa ay ku gaarsiinaysaa in aad hesho jecel xagga Allah iyo bulshada aad la nooshahay. ee ku dadaal sidii aad ku kasban lahayd ixtiraam wanaagsan.